وايد سلامي أصحاب تونا كلمية دجال كان أما مدرسة عالمي official muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa aynu dib ugu laabanayna 2010 ama 12 tennis ka hor intaan muuqaalka bilaabin afeef hore aan sii sheegay qaabkan aan soo gudbiyo 12 tennis waa qaab aan u arko sida ugu fudud ee qof u fahmi karayo iskuulka marka lagu dhiganayo ama meelaha kale aynu ku dhiganaba waxa laga yaabaa xiisad iyo in bilo inaga qaataan hal tennis kaliya fahansiintii waayahay waxbayaan muuqaalka dheeray waxaan doonayaa 3 minute gudahood inaan ku dhigo hal tennis waayahay tensigan maanta soo qabanaya muxuu yahay haddaba maanta waxaan soo qaban doonaa present perfect continuous tenniskaas ayaan maanta soo qabanaya waayahay tenniskaasi muxuu yahay haddaba present perfect continuous tense wuxuu sheegaa dhacdo ka soo bilaabantay waqtigii la soo dhaafay ee baastigii marka ku leeyahay ka soo bilaabantay halka aad ugu fiirso halka dhexdooda waxa ku jira macnaha tensigaba waayahay laga yaabaa inaad yaaban tahay sababtu ugu jira waxay tahay marka lagu leeyahay ka soo bilaabantay waqtigii la soo dhaafay dhacdadanu ma halkaas ay ku istaagtay mise qulqul bay samaysay qulqul waxaan ka wadaa socod miyay samaysay inta hal mar dhacday ayay mar labaad dhacday ay socotay oo dhacdadii socotay ilaa ay ka soo gaadhaysay presentigan oo hadda aynu taaganahay hadday tahay waxaa loo yaqaanaa present perfect continuous tense oo laga wado continuous qulqul ama socod samaysay haddana soo gaadhay waayahay waxaan soo gaadhnay qaybtii aan ku sheegi jiray qaacidada iyo tusaalayaasha ku sheegi jiray muuqaalka horena waan u sheegay inta ugu muhiimsan waa inaad ogaataay war xilli maan isticmaali karayaa tensigan taas ayay muhiimad u tahay markaad ka hadlayso aad sheegayso dhacdo ka dhacday baastigii oo socotay oo qulqul intay samaysay haddana taagan dhacdadii taagan tahay waxaad isticmaalaysaa tensigan habayaan hadal dheerayn muuqaalka waxaan doonaya inaan soo koobo hal su-aal baan ku weydiinayaa waad xanuunsatay tusaale ayaanu ka dhigaynaa moogta waad xanuunsatayba hadda waa hypothermic ilaahayba kuma keenee dhakhtar baad u tagtay waxaad ku tidhi waxaan xanuunsanayey 5 bilood ama 4 bilood waan xanuunsanayey xanuunkuna wuxuu soo bilaabmay waqti hore oo xanuunka markaana daktarka la joogto hadda kuguma dhicine muddo ilaa 3 bilood 4 bilood ka hor ayaaba xanuunkan ku asiibay allaba ma keenee marka taa waxaynu ku salayn karnaa oo odhan karnaa tusaalaha ugu fiican aad ku fahmi karto tensigan loo yaqaan present perfect continuous tense dhacdo ka soo bilaabantay waqtigii baastigii lasoo dhaafay ama baastigaas mid fog ha noqdo oo dhowr sano ka hor ha noqdo ama ha noqdo bilo ka hore oo laakiin bishurdii ama shuruudda la doonaya ay tahay hadda waqtigan la joogo ma taagan yahay wuxuu ahaa qulqul ma sameeyo continuous amase ma soo soconaya ilaa ay waqtiga ahaa waa present perfect continuous tense intaas waan jecelahay inaad ku fahantay tensiga haddana ila soo eeg tensiga qaybtiisa exampleska iyo qaacidadiisa haddaan ku horreeyay qaacidadiisa tensigan kuu soo sharaxayay waxaad ku binaynaysaa ama ku samaynaysaa markaad dhisayso subject ama ficil sameeyaha ayaad xagga hore dhigaysa intaa markaad samayso waxaad ku xijinaysaa have been subject plus have been plus verb plus ing intaas waa qaacidadii tensiga ila soo eeg markaa ardayow qaacidadiisi waad aragtay examplekiisa haddaba example 1 I have been playing football for 30 years I have been living here in Bro for 10 years labada example baan ku sheegay ardayow aad baydii salaamaya wasalaamu calaykum